waa Mustafa weeye waxaan kuu soo diray madow adna kuu soo diray share Twitterkaaga ma eegtay warqadda carabiga ma akhriday ني أف waxaan عربي la hadlay ilaa وفهمي markii واي qadar baan la hadlayay kowni تهدي وزائر الشر warqadda waxaa loo diray Cumaan waxaan kaloo idin soo diray kulli waa idila sheergareeyay ninka la yiraahdo ما xalasona warqadda waa arkay kan oo qoray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ma warqaddan kuu soo diray waxa weeye waa journal maanta Reuters iyo New York Times kulli way qoreen wasiirka arrimaha dibadda xul buu iibin jiray waa maqasheen ها dhuxush baa lagu qabsaday waxa shaqada looga joojiyay waa dhuxush waka marka warqadda carabiga oo qoray maanta waxa qoray ninka la yiraahdo Roble waxa loo qoray Cumaan markabkii waa la hayaa waxa la yiri markabkaas dembiga ku haysana ku qaadeen raali baan ka nahay hawshiina ka qabsada asaga warqad qoro waxa la sii daayay yiri soo ma ogid waxaa qoray wasiirka arrimaha dibadda wasiirka qoray warqadda waa arkay warqadda qoray waa arkay laakiin sheekada cajaa'ib kale idin sheegay haddaba wuu ogaa نمع صور هذا اللي محوس قادنيسا قبر كلا صور كذا وضعتها كور محشونيس ريالي ninka Roble la yiraahdo waa very smart waa good guy waa nin smart oo engineer uu la sugay uu rabay ra'iisul wasaaraha loo magacaabay next 5 weeks Roble shaqo wada one by one Jamaal baa ku xiga ninkii hanta dhowrku uu la shaqeynaya meeshan wadanka dhulka la dhigay dhulka koode islaantii caawa may seexan baa la islaantii la oran jiray Khadijo war ninka consulka Kuwait baa laga soo bedelay waa nin godobersiya waxa laga soo bedelay meesha la yiraahdo Kuwait buu ila joogay 4 sano sa joogno Kuwait safaaradu ka shaqeynay ninkii Mustafa Amaan ya safiirka war Amaan waxa safiirka Amaan koode Dubai يركسياد براجعوها South waxa joogo ma inaan maraxaan u geelay حسن سياد براجوق جري markii hore حسن سياد برهاب intuu مسكت buu joogay مسكت fiiri Dubai koode yarka soo bedelayaa waa ii sheegay isaga yarka Kuwait baa laga soo bedelay Abi baa la yiraahdaa haye Abi baa hadda la hadlay ilaa intaad ka maqnaa qadar buu joogaa marka inamadii qadar ayaan dhawtay inama qadar intelligence ka haystay ka booliiska haysta ayaa Miami asxaab baan ahayn marka qadar deganaan jiray Miami bay imanayeen markaasaan ugu tagay aan macsuumo meelaha geeyay marka waska jaahiliin Carabta markaasaan meelaha geeyay sawirada waxaan u soo diray bahalka marka yarka waan kala hadlay waxa yarkaas joogo Kuwait laga soo bedelay is a good guy ninkaas isku xirta marka waxa la hadlay ka migration ka haysta la hadlay oo yarkii yiri wax kasta u baahato saacid oo ku saacidaya Mustafa dad garanayso anyway yarkii wuxuu igu yiri hadda safiirka ayaa ku jira online-kii galay safiirka waa nin maraxaana dahab uu ka furtay meesha dukaan weyn oo dahab waxa la yiraahdaa suuqul waqaf waxaan ku leeyahay royal family-ka baa ka shoobin garayo dahab ka doonta dahab uu ka furtay lacagta wadanka laga dhacay فهد walaashina uu qabaa فهد walaashina uu qabaa waka marka yarkii ku xanaaqo ceejinay dhageyso walaashis ma isku guursada yarkii wuxuu yiri ilaa xalay ninka ma seexan ilaa maanta ma seexan arintii waa soo gashay meeshii waa isku marka yarka aniga wuxuu igu lahaa Xasan Sheekh Mawlad access meeshan la iga bedela ma rabo waan ka helay Kuwait halkan ay dhaanta guri fiican baa la siiyay ma waa shirkad Kuwait oo kala ma mugta waa Soomaali oo dhan ma walaalo Kuwait way fiican tahay Kuwait waxay kaga duwan tahay qadar baan ku sheegay Kuwait waa wadanka kaliya Soomaali u ogolay inuu taksiila noqdo inuu noqdo construction worker Egyptian loo ogolay jaamacad Carabiga ku jiraan balira si fiican bay Soomaalidu u taageerayaan qadar waa new kid in the block ana qadar 4 sano joogay koode qadar waa istus weeye Soomaaliya waxbay ka damacsan tahay waxbay ka doonaysaa so safiirka iyo groupka way la shaqaysanaysaa laakiin Soomaalida kale askarta iyo booliiska ku jira way xishmeeyaan marka arintu meesha ka macaanayso safiirka wuu wala rabaa uu ku jira dhuxusha uu ku jiray dhuxushana waxa laga qaadi jiray Puntland baa laga qaadi jiray okay waxa kale oo ka daba tagay shire
arrintii caawa aad ka hadlaysay ma ka daba tegi karaa arrintii runtii baan soo ogaaday تابو aad noo sheegaysay eed lahayd waxaad maqashay in markii badbaado qaran waddanka soo galeen runtii baan ku hayaa سوسيدا diyaar ma u tahay عادي سوسيدا okay lacagta badbaado qaran waxaa loo dhiibay sheekh shariif asaa qaybiyey geeyey jacfar waa nin mursada ah xabadda iyagaa lagu bilaabay xabaddii ugu horreysay ee la rido jacfar baa riday xabadda ugu horreysay jacfar baa riday laakiin teknikada lixda waxaa soo dhiibay xasan saney iyo ninka la oran jira xaadoole wax alla waxa lana tegay male ducaale haddii uu lacag geeyey waa bahalkii oo lacag geeyey ducaale ninka la yidhaahdo xasan cali kheyre lama kala waxeeyo cosoble uu ku dhex jiray askartuu ku dhex jiray xasan sheekh iyo ninka la yidhaahdo bahalkii hodheelkay ku jireen laakiin maalin ka hor waxaa baxay sheekh shariif laakiin sheekh shariif logistiga iyo lacagta everything asaa qaybiyey ninka la yidhaahdo muuse suudi isna qayb weyn buu ka qaatay ciidankiisa iyo wixiisa iyagaa wax kasta gudbinayay sheekh shariif iyagaa iskoorgaraynayay marka arrintaasi way dhamaatay waa been waa zero xataa inama maxay ahayd xalana jooga way confirm gareeyeen marka taa ha dhegeysan waa been wey waxaan CBB da ay soo geliyeen nimankana taa way ka sinaayeen xasan cali kheyrna wixii lagu xaman jiray been bay ahayd xasan cali kheyre farmaajo inuu dhulka la gooyo uu doonay inuu ka aarsado uu doonay 7 mid baa lagu riday intii wixii oo dhan waa lagu dacayadeynay laakiin only thing uu ceeb ku sameeyey ismuu maydhin inuu at least ardaydii حسن أنا كأ مصطفى حسن أنا كأ حسن وحسن ومصوى